Waa kuma hogaamiyaha ay ugu doonista badan tahay Chief iyo hurdana u diiday Israa'iil. Hogaamiyaha ururka Xamaas Ismaaciil Haniy. Ururka Xamaas waa urur xoreyn kaasoo dagaal kula jira dowladda gumeystaha Israa'iil. Ismaaciil Cabdisalaan Axmed Haniy waxa uu dhashay 29 Janawari 1962 waxa uuna ku dhashay kaamka qaxootiga Al-Shati ee magaalada Gaza ka gadaal markii waalidiintiis lagala wareegay deegaankoodii ku yaalay magaalada Casqalaan ee dhulka reer Falastiin sanadii 1948 kadib asaasidii Israa'iil. Haniy waxa uu wax ku bartay Machadka Al-Azhar ee magaalada Gaza asagoo shahaadada sarena ka diyaariyay kulliyadda Arabic Literature ee Jaamacadda Islamic University kuna taala magaalada Gaza. Markuu jaamacadda baranayay Haniy waxa uu ku biiray Islamic Students Blog isla sanadkii uu qalin jabiyay 1987 waa bilowgii kacdoonkii baahay ee Falastiiniyiinta kaasoo looga soo horjeeday gumeystaha Israa'iil waxaana loo yaqaanay First Intifada iyo aas-aaskii kooxdii Xamaas. Askarta gumeystaha ayaa xiray Haniy 18 maalin markuu ka qayb galay mudaharado looga soo horjeedo gumeystaha Israa'iil. Sanad kadib 1988 mar kale ayaa xabsiga la dhigay 6 bilood asagoo haddana ku qaatay xabsi 3 sano 1989 markaas oo lagu eedeeyay inuu ka tirsanaa ururka Xamaas. Markii laga sii daayay xabsiga Israa'iil waxay u masaafurisay Haniy koonfurta Lubnaan asaga iyo madax kale oo ka tirsan ururka Xamaas halkaas oo uu ku sugnaa muddo hal sano ah. Kadib heshiiskii Oslo Accord ee u dhaxeeyay Israa'iil iyo ururka xoreynta Falastiin waxa uu ku soo laabtay magaalada Gaza. Haniy waxa lagu tirinayay ururka dhexdiisa kaaliyihii iyo gacantii midig ee asaasiyay ururka Allahu naxariistay Sheekh Ahmed Yaasiin sanadii 1997. Sanadii 2001 kadib dilaacidii kacdoonkii labaad ama Second Intifada waxay xoojisay booskiisii asagoo noqday mid ka mid ah madaxda siyaasadda ee ururka Xamaas iyo midkii saddexaad ee ururka ugu sarreeyay kadib Yaasiin iyo Cabdulcasiis Al-Rantizi. Haniy iyo Yaasiin waxay ka badbaadeen isku daydii 2003 kadib markii ay Israa'iil diyaaradaheeda duqeeyeen guri ay ku sugnaayeen labada hogaamiye ayna shir ku lahaayeen magaalada Gaza dhexdeeda. Bilo yar kadib Yaasiin oo ahaa hogaamiyihii ugu muhiimsanaa ururka ayaa waxaa bartilmaameedsaday diyaaradaha Israa'iil kuwaas oo dilay asagoo oo ka soo baxay masjid kadib salaadii subax. Haniy waxa uu caan ku noqday 2006 marka uu Xamaas u horseeday guushii doorasho sharciyeed ay ka gaareen dhaqdhaqaaqii Fatah oo awoodda hayay in ka badan 10 sano. Inkasta oo muddo kooban noqday ra'iisul wasaaraha maamulka Falastiin haddana diidmada beesha caalamka inay la shaqeyso ururka Xamaas dhibaatooyinka iyo qalaalaasaha ka dhex taagnaa labada xisbi ugu dambeyntii waxay keentay in dowladii lagu mideysnaa ay burburto sanadii 2007 kadib markii ay Xamaas la wareegtay gacan ku haynta marinka Gaza. Haniy waxaa xilka ka qaaday madaxweynihii Falastiin Maxamuud Cabbaas isagoo sii ahaa madaxii ururka xoreynta ee Gaza. Dhowr jeer Haniy waxa uu sheegay inuu aqbali doono dowlad Falastiini oo xuduudeedu tahay sidii 1967 iyadoo Qudusna ay tahay caasimad. Waxa uu sidoo kale sheegay in xukuumadda Xamaas ay doonayso inay la shaqeyso dowladaha reer galbeedka ee daneynaya taageeridda xuquuqda dadka reer Falastiin. Wareysiyo isdaba joog ah ay email ahaan kula yeesheen xarunta daraasaadka ee Al-Saytuun ee fadhigeedu yahay magaalada Beirut sanadii 2013 Haniy waxa uu sharxay in Xamaas ay kala soocayso dadaalada siyaasadeed tanaasulaadka dhexdhexaadinta kama soo horjeedno dadaalada diblomaasiyadeed ama mid siyaasadeed oo la doonaya in lagu soo celiyo xuquuqdeena laakiin waxaan ka soo horjeednaa gorgortan ama in aan u walwalno xuquuqdeena. Intii uu socday dagaalkii Israa'iil iyo Falastiin sanadii 2014 waxaa ku dhintay 2 adeeradiisa waxaana ku burburay guryihiisii.